وبنا استعين الله من الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبا نديكم هذا علينا يا سلوينته قدرينته يا حشمة رمضان ودهنا وأنا ما علينا ذلك جبلان إلهي وأنا مهاتك الله سبحانه وتعالى نود سوق كان كان انتهى كبعدي سفر بان قال لي الشر كي لقاها اللي وحلوش HBLF oo laga hadlay bal siyaasadda Soomaaliya iyo meesha hadda wax marayaan iyo 2016 markii la sheegay jiray meesha hadda wax la gaarsiin karayo guud ahaan waxa laga hadlay waxay ahayd in bal dib loo sii wada hadlo lagana wada hadlo sidii marxaladda kala guurka Soomaaliya ay uga gudbi lahayd وجه iyo nidaam la isku raacsan yahay loo marin lahaa iyadoo aan isleeyahay ka maqnaanshaha Puntland oo saameyn badan shirka ku lahayd lana isla gartay in la raadiyo iyaga ka bacdina shir guud la isugu yimaado arrintan hore loo sii dhaqaajiyo waxa garab socday shirar kale oo dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada iyo iyagana iska shirarkii caadiga Soomaalida loo qaban jiray bay ahaayeen shayga asalkii waxa weeyaan laakiin masalada amniga yaad moodaa inay aad u dhib badan tahay uguna adag tahay shalayna aad ogeydeen inuu shirkii xidhmay dowladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ay Jabuuti ku lahaayeen ka hadda Turkiga macno badan oo kasii sheega ma laha laakiin kelmadaan rabay inaan idhaahdo waxay tahay nolol iyo system iyo maamul iyo kala dambeyn iyo horumar intaba midna lama gaari karayo haddaan amni jirin arrinta amniguna waxaad moodaa inay maalmahan aad u sii halaabayso waddanka Soomaaliya iyadoo ciidamo tiro badan ay joogaan iyadoo la leeyahay waxaas amniga ku baxa iyadoo kharash badan laga hadlayo haddana waxaad moodaa maalin walba amnigu inuu sii gacanta ka sii baxayo sii halaabayo dhibka waxaan isleeyahay inta badan Soomaalida la kule sababtoo Soomaalidu inay weligeed sugto oo tiraahdo ciidamo shayaan sugeynaa inay wax noo qabtaan baan sugeynaa inay meel la gaarsiiyaan baan sugeynaa inay amniga naga sugaan baan sugeynaa waa arrin iska adag weyn inay iyadu xisaabtanto isku tashato isku xisaabtanto ciidankooda la abaabulo laga shaqaysiiyaa axsan waliya international kuna waxaad moodaa in laba xaalo labadaba koow inay ka gaabinayaan dhismihii ciidankii Soomaaliyeed laba in ciidanka amisom jooga laftirkiisu dhaqaalaha uu baahnaa iyo tabashadooda iyada lafteeda aan la buuxinin laguna dabagelin howlgalkoodii si u dhaqaaqi lahaayeen sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa Soomaaliya mas-uuliyadda ugu horeysan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduba inay isku xisaabtamaan oo bal amniga dib la isu weydiiyey shacabka Soomaaliyeedna maanta waxaad arkaysaan shalay baydhabo xasuuqii ka dhacay dad ciyaaro fiirsanayay baa 26 dhimasho iyo intaas 60 dhaawac waxay sameeyeen kubadda cag bay fiirsanayeen waxay u baahan tahay nimankaani waa cadow in si toos ah cadownimo loola dagaalamo dhibkan haysta waxa way qabyaaladii inta naga badatay yaa maanta kii shabaab la soo qabta talaa ayaa reebel ana la dijeeda reebel baa la wata recommendation iyo waxa loo raadinayaa in la sii daayo markuu ku dilayo reer maaha arxan maaha waxba soo dhaxaysan marka la qabtana waxay noqotay kaarka la isticmaalayo taas waxaan oran lahaa shacabkuna ha ka waantoomo iyo siyaasiyiinta talaahana waxaan ku soo jeedin lahaa ama dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqotee in kulligood laga qaado ciidamada amisom waardiyeynaya oo qolo walba iyadoo is waardiyeyso oo qolo walba bal horta hal la ogaado amnigu waxa uu yahay say tahay laga bilaabo fila Soomaaliya in laga qaado ciidamada amisom jooga oo la yiraahdo ciidan Soomaaliyeed oo idin waardiyeeyo dhisto ciidan Soomaaliyeed waardiyaha la saaro macnaha midda ka iman kara waxa weeyaan horta in la ogaado amniga laakiin haday nin walba aan idhaahno intaasoo ciidan ay ugu hareereysan oo intan ay waardiyeynaysa dee amni aan u baahnahay ma jiro in la wada dhadhamiyo aad bay u fiican tahay
waanu mahad celinay ciidamada amniga Jubbaland waxaan iyagana rabay inaan u sheego inaan dardar gelino maalmahan la dagaalanka nimankaas manaxayaasha cid kasta oo ka daba timaadana waxaan rabaa inaan u sheego in sharciga la waafajinayo qof kasta oo qof shabaab oo la soo qabtay ka ergeeya ka daba yimaado waxaan doonaynaa inaan tallaabo sharciga ka qaado waxa weeyaan nin adiga ku dilaya aabahani tala isaga kuma laha markaad berri u sii dayso wuxuu ka oranayaa kii murtadka ah aabahay haba soo daayay ilaahay gacantiisa ugu soo faki marka kolleyba haddaad murtad tahay adigana dilkaaga iyo kale ayna u kala duwaneen sabab hadda loogu sii waxeeyo ma laha marka waxay la tahay hawsha amnigu inay tahay hadda waxa u baahan in muhiimadda la saaro soomaaliduna waxay la quman inay oon soo jeedin lahaa inay tala midaan ka bedelan ay samayso waanu mahad celinayaa ciidamada amisom iyo beesha caalamka iyo cid kastoo naga caawisiya kuwaas raggoodii ku waaya dhiigooda noo horaya laakiin waa weligood ma joogayaan berri bay tegi karaan beri dambey tegi karaan inaan sidaa aan u fadhino maalin walba dib usii noqonahay sax maa waxaa dhibka oo dhan noo haystana waxa way qabyaaladda iyo qabiilka iyo qurunka iyo waxaan iyaga nimankan ay markay annaga dan naga leeyihiinna shabaabku ay nin walba waa reer hebel u isticmaalayaan iyo odaygaygi markay waxa suuqayaan ayna reer hebel ayna yihiin waan ka baraa'a qaadanay islaam baan nahay u leeyihin maxay galabseen carruurta ay kubadda fiirsanaysa la leynaya marka waxay la tahay taana aanu diyaargarowno aad baan idinku mahad celinaya ciidamada amniga iyo mas-uuliyiinta waad mahadsantihin wabillahi tawassul